iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد وسورة البقرة آيات بقرية تطبية سقاشا قال الله تعالى إلهي بأوحر الحج حجك أشهر معلومات وبلا يقام وقت حجك وبلا يقام فمن فرض فيهن قفك حجك اسكو واجبيه بلها دحدوده فلا رفث ما جرى waxa loo yaqaano galmo ولا فسوق فاسقنبنا ما jirto afxumo ولا جدال في الحج حجك دحديسنا مرن iyo dood aan bila macna lahayn laba ogola وما تفعلوا من خير wixii wanaag ee sameeysan ya'lamuhu Allah ilaahay baa ogaanayo kama qarsoona وتزودوا صهيقات فإن خير الزاد صهي وحا وناكسن التقوى الله كعبسك واتقوني أنيقا يقع عبسد أبو إلهيدي يا أولي الألباب ضدك عقلك له ليس عليكم جناح تشين الدم بمسارة أن تبتغوا إن رادستان فضلا من ربكم لا يراد إلهي إن حقي سكيمدو اسكش قيستان حجك دحديس ويدين بنانته فإذا أفضت من عرفات marka carafa ka soo noqotaan fadhkuru allaha ilaahay ku xusa inda al-mash'ar al-haram buurta magaca la yiraahdo agteeda wadkuruhu ilaahay xusa kama hadaakum sidii idin baray ilaahay u xusa wa in kuntum waxa ahaydeen min qablihi intaanu ilaahay idin hanuuninin ka hor la min ad-dallin kuwa halowsan ba kamid ahaydeen thumma afidu waxa ka soo noqotaan min haythu afada an-nas halkay dadku ka soo laabteen oo carafa ah wastaghfirullah ilaahayna dambi dhaaf weydiista inna allaha ghafuurur rahiim ilaahay baa dambiga dhaafa oo naxariista markaynu macnaha aayaadka isdul taagno aayadahani waxay ka waramayaan kayfiyatu adaa'il hajj hajka amaladiisi habka loo gudan lahaa hajkiga umradu eeriyada ama dhulka lagu guto ee lagu la yimaado way ku kala duwan de umrada waxa lagu gutaa masaajidka iyo kacbada yadda halkii uu ka soo xidhay qof laakiin xajku goobo kale oo mashaacir la yiraahdo badan buu leeyahay ama dhowr meelood markuu qofku soo xidho xaramka yimaado de xaramkii iyo safa iyo marwa amal buu ku gudanayaa mina muzdalifa iyo arafa iyo jamaraadka intaana amalka inta kale ku soo gudanaya si kale hadii loo eego way kala waqti dheer yihiin ama way kala waqti badan yihiin xajka iyo umradu goorta la gudanayo umrada waxa laga yaabaa qofku inuu waqti dhow soo xidho diyaaradda ka dego 2 saacadood gudahoodana uu ku dhameystiro garigeedaba waa tawaafka iyo saciga iyo xirashada ama gaabinta oo intaaba xajku laakiin wuxuu qaadanayaa 5 cisho ama 6 cisho hadii qofkii dhameystirayana 6 cisho qaadanaya hadduu tacajulaya ama degdegayana sharci soo qaadanaya si kale markaynu dhigno goobahan aayadku ay sharxayaan waxa weeye marka hore waxa timid maka oo ku dhex yaala xaramkii minaad u baxday marka maalinkii 8aad oo koonfur bari ka xigta xaramka maalinkii 8aad iyo habeenkii 9aad halkaas la joogay maalinkii 9aadna carafa ayaa la joogay musdalifo la sii dhaafayaa marka la sii socdo waxa laga qaban maayo maalinka 9aad carafa lagu cibaadeysanaya salaadihii lagu jamcinaya lagu ducaysanaya habeenkii 9aadna musdalifa lagu soo noqday oo markii hore la sii dhaafay oo iyadana lagu gudanaya habeenkii ciida amaladan aayaadka ilaahay uu ku sheegay maalinka ciidana buurtii baa la tuuraya iyo 2 cisho ka dambeeya xaramkiina tawaafkiisa saciga baa lagu soo sameeynaya marka intaas ku dhamaato maalinta tagaysana wadaaci tawaaful wadaac ayaad sameynaysaa markeen soo koobno intaas ku dhan yahay carabtu hadaba waxa jiray way iska meelaha way marmari jireen هذا
iyagoo le nebi ibraahim baanu kaga dayanaynaa diintiisii way marmari jireen meelaha laakiin quraysh waxaanay tegi jirin carafa naxnu lxums bay odhan jireen annagu mitid baanu diintooda ku adag kama baxna xaramka xuduuddiisa waxaan baraarujin lahayn mar kale carafa way ka baxsantahay xuduudda xaramka oo intan kale dee maka iyo mina iyo musdalife iyo jamaraadka iyo way ku jiraan laakiin carafa way ka baxsantay marka waxay odhan jireen annagu meeshaa ka baxsan xaramka xokayntii xaramkaanu nahayo ma tegayna dadkiina kale iska taga oo dadku aayaadkan ilaahay kula hadlaya subxaana wa tacaala markaasaa waxaa la leeyahay halkay dadku tegayaan taga oo sii socodka gaadha soo socodkana ka soo butaaca oo sidii berigii hore arrintu maaho islaam baa yimo arrinkii wuu isbedelayo ilaahay baa laga amar qaadanayaae sida carafo loo tegayo idinkuna u taga marka aadaabtii xajka iyo acmaashii loo gudan lahaa ayaa halkan ilaahay uu ku caddeeyey marka xajkii waxaan u leeyahay shay kaloo loo yaqaano mawaaqiit halkana ilaahay uu ku baraarujiye wuxuu uhi alxaju ashhuru macluumaat xajku waxa weeye bilo la yaqaano bilahaas waxa weeyaan shawaal dilqicda wa cashru min dilxija bishaa shawaal soonfur iyo bisha ku xigta ee loo yaqaano dilqacda ama sadataal aynu nidhaahno iyo 10ka cishe hore carafa bisha carafa ama dilxija ashhuru macluumaat carabtu way taqaanay waqtigaas uma la xidhan karaa xajka qofka xajka isku waajibiye saddexdan arrimood waa mamnuuc الرفض والفسوق والجدال وآدابتي حجك رفض كوا قلمدي وحي لا خريري حاس كوا حرام إن كذي يدو حلال بايسو هذا لكن أنت عملك يكون احترام واكل حرام فسوق ونده وحي ويا دنبي نوعية دي سكل الدوان أف حمدي دعايات دي وحاس كمدي هي جدال كنا ضاد عقيمه عن علم اللي يسلقه لكن مرنا إسكنسي يتشافى شرق iyo waxa taqaana ee Soomaalidu ay badsadaan taasina ma jirto ilaahay daraadii baa loo afxiray hadi rihlatu salaam wa safar nabadeed hatta xayawaanka iyo dhirtii baa nabad galay oo lagu leeyahay xayawaanka halayna dhirtana halayna dadkana nabad gali rihlatu salaam fi baladi salaam wa safar nabad galiye dal nabad galiyo dadka ilaahayna ka nabad galo wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah عملك خير كابط طوافك سعيك صدقة ذكرك تلبية خير كبدي وقت خير كوحرنا وعربونوي وتزودوا فإن خير زاد التقوى حيابا لصحي قادنا يا أيامها سياد لوقا فإذا سنة يقالك أو حكم إذا لك عبسك الله كعبسك هو صحي محو صحي وياه يا آخرو صحي وياه روح ذا صحي وياه سكة لها دي الله يقول شركة نوح كنت مريا عنا يعبد ayuu ku tamariyaa iyo hurdada iyo dawada ruuxduna waxay ku tamarisaa cibaadada iyo cilmiga ayay ku tamarisaa quutul qulub quudka ruuxda iyo qulubtu ala ka cabsiga iyo cibaadada iyo wixii khayra sida marka raashinka alla ka cabsigu ruuxda ugu yahay ayaa alla ka cabsigu mar kale ruuxda dhar ugu yahay dharka xidhan lahayd walibaasu taqwa dalika khayr dharka alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan dharkiinan caadiga ah bilahay hadii ruuxdaadu dhibato jirkaaga oo dhinta way ka daranta hadii ruuxdaadu qaawan tahay jirkaagana oo qaawan way ka daranta labadaba ereyga khayr buu ilaahay isticmaalaya raashinkaagan kan kala ka khayr badan dharkaagan kan kala ka khayr badan walibaasu taqwa dalika khayr balan halkana fa inna khayra zadi taqwa balan marka alla ka cabsigu waa asturaada waa quruxda waa sharaftan ku muuqanaysa ka daran oo ka qiimo badan culimada qaarkood waxay leeyahay aayaddu waxay ku soo degtay niman reer Yamaneeda waxay oran jireen nahnu mutawakkiluun annaga waxaan dad ilaahay tala saaranayo dadku waxba bay si yara guntadaan oo sahaybay sitaan maya annagu ilaahay aan tala saaranayna xajka sidiisa aan ku tagayna waxba sahay uma baahninba markuu qofkii meeshii tago baahidiina taalo ma waxa weeyaan ciid u cunaya dadkaas marka ay dawarsan jireen oo noo dhiiba bay ku xigi jireen nin kastoo asbaabtiisa qaadan oo arrinkiisa meel ku tiirin ii dhiibayo shaxaad ku dambeeya ilaahay wuxuu wa tazawwadu wa amar aadaabta xajka waxa kamid ah sahaysiintu fa in khayra zaad sahay waxa u fiican sahayda xajka waxa u fiican at-taqwa ma yutaqa bihi an su'aal shayga su'aalka ga maaranto marka kulka xajka tagaysa ku talagalin
kuwa riyaad jooga iyo kuwa jiddo jooga iyo ee reerkiina ama saaxiibadaadu inay bokod maniga ku siiyaan ama jeebka xoogaa ay ku geliyaan oo hodhan diyaaradii baan iska sii bixin doonaaye xaggaana mid annagaabaa noo jooga markaa isagaan ka qaadi doonaa wixii qaxwo ah iminka dadka halkan ka tagaa la shaxaadaaba shaqalaan baa dhacday sacuudiga busaarad baa ka jirta ha ku talagelin halkan waxaaga ka qaado waxaan la doonayaa markaad goobta tagto inaad sadaqada bixiso xoolo qasho masaakiinta xaramka wax siiso laxajaclaxmada waa musiibo adigu waa inaad noqotaa kii wax laga daylaa dadka wax ugu deeqilaa sidaa ilaahay uu yihi wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah waxaa laga yaaba qofka taajirkeenna inuu neefkii hadyiga un qalo ama hadyi tamatuci iyo qiraankii kii ku waajibay inuu qalo iyadoo uu heli karayo inuu dee kumayaal neef qalo waxa weeye waa haqaafadii naga dhiman sida had iyo jeer awqaaftu inoogu yartahay baa xaramka in wax badan lagu qalaana inaga dhiman tahay qofkii wuu heli karaya laakiin aqoontii baa ka maqan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoon geelba lahayn ayaa wuxuu qalay maxay 100 neef buu qalay muu odhanin dee qayb inoo reeb xaggii madiinaynu ku dhaqaya marka meel wax la geeyo meelaha ugu qiimaha badan weeye waxaa kaloo jirtay aragti odhanaysa marka xaramka marka la joogo xajka dhexdiisa ee la cibaadaysanayo yaan shaqo lagu dhex darin oo wax shaqo ahoo masaariifi ay ka soo baxdo ama wax laga soo saaraba intuu qofku dharka cad xidhan yahay waa xaaraan taasay dadku isku qanciyeen tiina ilaahay wuu nasakhay ila sharciga isagaa laga qaataa oo wuxuu ogolaaday iyadoo qofku muxrim uu yahay oo camalkii uu xidhan yahay oo dharkii caddaa uu xidhan yahay inuu shaqaysan karo ama waxa sarifo ama alaab dalkii uu ka soo waariday minaha dhigdhigo ha ku iibiyo ama shaaha shubo maqaaxyaha furto mar haddii aanay cibaadadiisii u diidaynin labadaydaba weeye labadaydaba diintayda iyo dunyadaydaba labadaba waan wadayaa weeye su-aalun baa kugu daran markaasaa ilaahay wuxuu uhi laysa calaykum junaax dembi dushiinna ma saara sida idinku dareenteen arrintu ma aha an tabtaquu fadla min rabbikum inaad ka raadsataan arsaaqad iyo adduun ilaahay xaggiisa oo shaqo tagtaan qiraadaas waana sugmina fii mawaasim alxaj xajka waktiga dhexdiisa ayaa jirtay laakiin tafsiiraan baa loo qaadanaya qiraahaan looma qaadanayo taasina waa arrin kale oo ilaahay uu caddeeyo meesha ka saaray manaaficda xajka liyashhaduu manaafica lahum manaaficda iyo dheefaha xajka waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah qolo waliba inay la shir yimaadaan waxay walaalahooda kala dheer yihiin ee xirfad ah ee waxa ay soo sameeyeen iyo horumar ah waa inay mino iyo musdalife iyo carafa iyo keenaan xaramkoo la isdhaafsadaa manaaficda dunyawiga oo la kala macaashaa farsamadii iyo wixii la soo sameeyey gacanta lagu sameeyey wax oo dhan sidaa daraaddeed ba had iyo jeer aad arkaysaa waxyaabaha ay muslimiintu keenayaan wax badan oo cajaa'ib loo goortaa yaala arrintii kale ee ahayd carafo ma tagno iyo maxaa laga qabanaya halkaana ilaahay wuu naga wacyigeliya waxau ihi faidaa afadtu min carafaat carafaat marka ka soo butaacdan carafatunna waa la idhaha carafaatna waa la idhaha fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam butaaco ilaahay ku sheegay butaaco nacam galabta laga caraabayo carafa haddaad meel dheer fuushaad saa u egto dadka oo saa u siqaya u gabaara gurdaynaya macnaha indhahaagu waxay sidii biyuhu markay qulqulayaan oo kale aad ku indha daraandaraysa muuqaalka ilaahay uu bixinaya waa mid dhabaho cajiiba ummadii baa saa u socotay iyagoo hiraya sida biyahoo kale marka halkaa ka soo butaacdaan ilaahay ha lagu xuso mashcarulxaraam buur yaroo ku taallay bay ahayd musdalifa hadda masaajid baa laga dhisay habeenkii maqribkii cishaayiga lagu tukaday iyo salaada subax in halkaa dikriga lagu badiya way badan waa shay ilaahay una faray waxaa jiray ayaamaha xajku la joogo xagga dambe sida ilaahay uu ku caddaynayo wax kaley dadku sheegi jireen oo ay xusi jireen wixii la xusi jiray waa la soo dhaaf ama la isugu faani jiray ilaahay baa la xusaya subxaanahu wa tacaala wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi lamin addaaliin siduu idin baray ee uu idin hanuuniyey dikrigiisa u wada waa hallowsanaydeena hanuunka raaca uma afiiduu min xayu afaada annaas halkay dadku ka soo noqonayaanoo carafaha ka soo noqda waha ka soo noqonina musdalifa siday quraysh samayn jireen taana waa la diiday nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa xajkuba waa carafa xajku gebigiisuba kama kacdadiisiiyo waxa lafdhabar u ah carafa markaa qofka aan carafo tegin xajkaasi sanadka wuu dhaafay oo tiirarka xajka u waaweyn waynu sheegi doonaa xagga dambe insha allahu ayuu ka mid yahay carafa istaaggeedu marka haddii qofku carafa ay dhaafto oo amarkan uu qaadan waayo
sanadkaa xajkiisi waa baaba'ay qalla weeye ana dhammaystiro ama cumraha la yimaado hana soo qalleeyo uma afiiduu min xayثu afaada الnaas halkay dadku ka soo noqonayaanoo carafaa ka soo noqda wastakfiru اllah ina allaha gafuuru raxiim shayga la yidhaahdo inaad ilaahay dembi dhaaf weydiisato ama aad dikriga badiso cibaado walba way ku lifaaqan yihin cibaado walba waxaa dhex socda soomka salaada jihaadka xajka dikriga iyo istikfaarta waxyaabaha nasriga iyo guusha iyo aqbalka lagu helaa buu dikru ka mid yahay camalkaaga waxa kuu salaaxaya kuu suubinayaana waa istikfaarta markaynu salaada ka baxna astaqfirullah 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 baynu leeyahay 3 jeer inagoo salaadba ka soo baxnay adigoo cibaadadan ku dhex jira qaaligoo ilaahayba u xidhanba ilaahay daraadiina halkan ayaamaha ugu dib jiraya ayaa lagu leeyahay astaqfirullah marnaba ha iscajabin camalkaagana in hore laga aqbalay ku talagalin laakiin camalkaaga tuhun oo aqbal ilaahay weydiiso wixii aad qaladayna istighfaarka weydiiso inna allaha ghafuurur rahiim wallahu subhanahu wa ta'ala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان